magaalada Nairobi caasimada dalkani Kenya waxaa ka furmay toddobaadka dhaqanka Soomaalida Kenya oo sanadkiisii shanaad galay iyadoona lagu soo bandhigay ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee suugaanta dooda lagu garfeynayo arrimaha dhaqanka iyo dhaqaalaha agabka iyo cunooyinka ay Soomaalida u leedahay dhaqanka bandhigan oo ay soo qaban qaabisay xarunta akhriska cilmi baarista iyo dhaqanka ee Awjama Cumar Ciise ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin uu kamid ahaa hogaamiyaha qalabiyada ee baarlamaanka Kenya Aadan Bare Ducaale dhaqan yaqaano qalinleyda Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Fardowsa Jaamac Yuusuf maamulaha xarunta akhriska cilmi baarista iyo dhaqaalaha ee Awjama Cumar Ciise ayaa sharaxaad ka bixisay waxyaabaha sanadkan ugu duwan yahay sanadkii hore abo wuxuu ku gadisay sanadii hore waa 5 sano jiray waxaan aad iyo aad anagu runtii aan u qiimaha u siinayna aragnay afkeeni iyo dhaqankeeni oo runtii si gabaabsamaya waxyaalihi gacanta aan ka sameeynay oo iyagana la waayay oo dadka waaweyn kaliya yaqaanaan dhalinyarada hadda yar ay aqoonin arrimihii aad iyo aad dadkeeni oo ugu baraarugsaneyn dhaqankeena iyo afkooda marka waxaan rabnaa inaan aan soo baraarujino dadka dhaqanka jecleysino Abdullaahi Cabdi Agoon oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa ka qayb galay sanadkan bandhiga toddobaadka dhaqanka waxaana uu soo sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay ka qayb qaadan karaan bandhigyada noocan oo kala waxaan jeclahay dadku inay qofku waxaan aaminsanaa anigu inay jirin qof isagu meel ku xidhnaan kara oo qofku waxa haduu isagu danaynayo uu baran karo laguna caawin karo in la baro marka saasay ku xidhantahay barashada iyo taabagelinta afku marka waxaan rajaynayaa inaan Soomaalidu afkooda kor u qaadaan oo hawshii meeshan loo yimi si fiican looga soo dhalaalo qoraa Shaafici Magana oo sheegay in sanadkan wax badan loogu soo kordhiyay toddobaadka dhaqanka anigu waxaan kamid ahaa dabcan labadii sano la soo dhaafay dadka qayb galay sanadka hore iyo kan kala duwanaansho ayaa ii muuqda waxyaalo badan oo dhaliilsanaa sanadka hore in wax laga qabtana waa laga bedelay oo ay kamid ahayd muujinta dhaqanka oo sanadka hore aan aad u xooganayn oo ay kamid tahay xoojinta afka Soomaaliga waxa kamid ah aqal Soomaaligii hiddihi iyo dhaqankii iyo waxyaalo kale oo la xiriira panel discussions ama dood cilmiyeedyo oo lagu falanqeyn doono arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxyaalo badan way jiri doonaan 3 bari oo soo socota ayuu socon doonaa bandhig dhaqameedkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalin ah ayadoo dadka ka soo qayb galayna bulshada la wadaagi doono waxyaabaha ay ugu talagaleen Cabdinaasir Cabdiqaadir Axmed Cabdinaasir Bambe DNA TV Nairobi